tilmaamtay khudbooyinkii marka khudbadii madaxweynaha sidee kugu muuqatay samxay uga duwaneed khudbooyinkiisii hore ما يهرت رنتي قدام دير بعيد إذا قرن وان أخري مركي لا يصدر وأنا دريستي أنا لبا خانة ضد ما ممكن قيبي خانة داني دي واحد السكيل لا ويكرر مركبة واحد السكيل لا ويكرر وحنا كونا واحد صار نقنضي صدق عشرة إلى ساق بتكنوا كم دي هي واحد اسكميد ولا جحظ إن أمد الصومالية دي دلك الصومالية لو ريال عجاري سال لبا بليون إيه وحكي بدن إحنا كما هينو إحنا كما ينانا بوندل إنه جماد دسين إن كستو معاملة وبدن إيه خرجك مشاركة أمسهم وكي مادو نتيجة بدن كما هينو مركا تيجون بلغوا عليه هذا واحد عديد مدحوينه إنه شرحي برنامجك دبودسك دقالها دلك إنه آذوا هالليلاتين تاسنا ما لا بدن بتسلوي كرتايو والنظامية دقالها ري يوروب كأمر ري قلبات كوك عنك كوهيان أو دنيا أنت بدن عن أودنين تاس ولا جدو تمي كرا كل بر فكرة أترع سنتين نظام في عنبوها ومدحوينه شرحي واحد بوقت سجى قرن أيو هباد صورن كرتا أنو تاوح نبحي واحد مركب الإسكيل لا وكذا بركي واحد نصاع أرجنا لبشر أو كوري وما أنت أمد الصومالي السويدين وليبا مدحوينه هو راح حسن محمد نوك هذا يقولي العجبان نجنا مسوا قادو بحال لا فرماتش مركو برايم مستر كهانة وآذو دليلي أنتو إنا واحد بدن إيه دلالكني مسوا قارسي مركا تا إيه إنه أبحين واحد الإسكيل لا وكذا بكذا ميل مقاد خانة دلبات بأنيق مهمة هاي وهاي مركي أوه الرئيسي وحن مدحوينها كفلنيني وها أمد الصوماليات إنه كونكشن أما حدد لسمعي إنه لحدده إنه إياك استفي عنه لحظه دور قضب ورنتي مهمة oo ugu talagalay umada Soomaaliyeed isagoo gaalada hor jooga inuu la hadlo waxa kamid aha inuu nala qaybsaday xanuunkii wasiirkii yaraa da'da yaraa ee la dilay Ambassador xanuunka uu madaxweynuhu dadkiisa la qaybsadaana qayb wax bay ka ciyaartaa isku talka labada dhinac shacbi weynaha iyo dadka taasi waa koob talabaad wuxuu xusay oo si fiican u sharaxay umada Soomaaliyeed haday Chinese-keeda hesho in ay ahayd dhaqaale abuure dadka ugu firfircoon ama baacimushar ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqoto isagoo markaa leh haddii waqti fiican aanu helo waa ka faa'iideysan karnaa Soomaali ahaan isagoo dhalinyarada dhiirigeliyay isagoo markii ugu horeysay meel international ama caalami iyadoo laga hadlayo u sheegay ummadda iyo kuwa hor fadhiyaba Soomaaliya inay ugu facroon tahay Afrika marka la eego xagga ku wareejinta awoodda ilaa aadan cad waqtigiisii marka sheekadii hore iyo taariikhdii hore quruxda badnayd iyo tan hadda ay isku taxay oo yiri in kastoo dhibaato leenahay laakiin waxaanu Afrikada kale kaga facdeernahay in anagu aan sameyn karno wax la yiraahdo peaceful transfer of power ama awood wareejin nabadeed waxa markaa hor fadhiya sarbeerta sheekadu ay ahayd anigu sidaan u macnaystay Museveni Haile Mariam oo noocaga jugleeya oo midkoodna 20 sano iyo wax ka badan doorasho shacbi aan qaban aqlabiyadna aan lahayn marka in reer galbeedkana isagoo u sheegay haday sheekada aad dugataan annaga idinka dhow marka la eego nidaamka aad ku dhaqantaan oo ah ka dimuqraadiga ee la wareejiyo marka runtii intaasna aad bay u qurux badnayd waxa uu ku soo gabagabeeyay oo aad uga mabsuuday in uu Soomaalida u soo hordhigay in dawladdiisu diyaar u tahay in amisan taladii ay kala wareegto iyadoo la isku keenayo awoodda gobolada ciidamadeeda iyo ta dhexe ciidamo midaysan la dhisayo isla markaana uu yiri ciidamo waanu haysanaa waanu dhisi karnaa ana qabataynta hubkana naga qaada markuu ka darjiyay waftigii meesha fadhiyay arrinta Soomaalidu inay fac dheer ku leedahay xagga dimuqraasiyadda in dadkeedu dhaqaale abuur kara ay chance ay diyaar baan u nahay inaanu hadda anagu nabadgelyada qabano it was beautiful arrin qurux badan bay ahayd runtii waan u sadbadiyay isaga meenta ku daro waxa aan wali madaxweyne ka maqal isagoo meel fagaaro caalamiga ka hadlaya farmaajo taabtayna waxay ahayd waa markii ugu horeysay uu xusay prime ministerkiisa meelihii buu yiri magaca iyo maamuusta aniga kaliday xasan khayre ayuu taabtay uu yiri my partner ama ninka saaxiibka ila shaqeeya iyo wasiiradeeda ila shaqeeya anigu taa waxaan u arkay waxa afkaalada lagu yiraahdo team player inaanu isagu uu magacii rabine oo dumarka iyo ragga la shaqeynayana uu la qaybsado credit oo hayo waxayna one man show ayna ahayn I hope inay saakuwada jiraan ibn hadaynu muddo ku furaynana team baynu ku furaynaa shakhsiyaad kuma furayno marka dawladda farmaajo inay ka dhabayso inaanay ahayn shakhs taasina qabiiladay aasaysaaya la soco marka wixii team noqdo team ma laga hortagi karaa gartay